jaamacadda magaalada Birmingham oo ku taala bartamaha wadankan Ingiriiska ayaa dhawaan waxa laga helay kitaab Quraanka Kariimka kaas oo loo malaynayo inuu ka mid yahay kutubtii ugu horeysay ee Quraanka Kariimka ahaa ee taariikhda la hayo. Kitaabkaasi iyo haddaba sidii loo helay iyo sababta imika loo soo saaray iyo arrimaha la xidhiidhaba waxaan ka waraystay wariye Xasan Xundubey oo stuudiyaha igu yimi. way Xasan Xundubey su'aasha ugu horeysa ku weydiinaya waxa weeye sidee lagu ogaaday qaybahan kitaabka kamid ee Birmingham laga helay da'da ay jireen horta waxa weeye waa mahadsantahay Cabdisalaam da'da ay jireen waxa lagu ogaaday waxyaabaha taariikhda lagu baaro waxyaabihii kumanaan sano ama boqolaal sano ka hor raacay dadka taariikhyahanka ah ay wax ku baaraan qalabkaas ayaa lagu baaray oo sheegaya wax walba xilliga ay ahaayeen. marka qaybtani waxay ahayd intii rasuulku noolaa waxyaabihii la qoray ee qof waliba uu ku haysta gurigiisa ama se maktabadiisa uu ku haystay markii dambe kitaabka la jamci doono oo Sayyidina Usmaan markuu madax noqday waxyaabaha uu isku dari doono kitaabka hadda la yaqaano jaamica ka soo saaray ayay kuwaan qayb ahayn. marka qaybihii go'go ahaa ee qof waliba gurigiisa ku haystay maqaarka ama lafaha ku qoraa lafaha geela sida garabka geel oo kale oo loox badan leh ayay ku qoraan jireen cid walba uu haystay laakiin xilligii Sayyidina Usmaan ayaa la soo keenay. marka waa qayb kamid ah taariikhda marka qaybaha kitaabka kamid ah ee Birmingham laga helay ay jireen inta lagu qiyaasayaa Xasan 630 ilaa 35 taariikhdu markay ahayd ayay dhaceen markii rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu yimiday Madiina 620 markii 620 ilaa 635 ayaa la qoray 15 ka sano ayaa la qoray xillidaas waatay sidee buu markaa ku yimi meesha kutubta lagu kaydiyo ee jaamacadda Birmingham waxaa jirtay wadanka Ingiriiska oo aad u daneeya waxyaabaha taariikhda ah iyo ummadaha dhaqankooda iyo diimahooda aad u daneeya ayaa 1920 waxaa la diray nin aqoon-yahan ah oo soo ururiyay Middle East-ga oo meelaha ugu taariikhda ugu horeysa iyo diimaha dhan ay ka yimaadeen diimaha samaawiga loo yaqaano ee muslimka iyo kristaanka iyo yahuuda ayuu inuu soo ururiyo. marka wuxuu keenay ilaa 3000 ayuu keenay marka qayb uu ka ahaataa waatay muddo 100 sanadood la sheegay Xasan in lagu la'aa meesha library-ga ama bugaagta lagu kaydiyo jaamacadda Birmingham sidee taas ku dhacdo miyaan la garanaynin in quraanki yahay jaamacaha baaritaanka dadkii ku haboonaa ee aqoonteeda lahay ee ogaan lahaa waxani waxay yihiin qiimeyn lahaa ilaa waa wax yar oo maqaar ku qoran ayaan helin. marka hadda waxaa rag expert ah oo aqoon u leh inay yihiin arintani arin culus inay tahay tan haddana hortaala oo anigu haddeer markaan gartay aan ka gartay waxa ay tahay suuratu Daaha bilowgeeda iyo suuratu Maryam dhamaadkeeda waaye haddii ay akhrin karaan dadku oo ay arki karaan waxaa dhamaanaysa suuratu Maryam lahum rikzan ayaa noo muuqata wa kam ahlakna way noo muuqata qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikzan way noo muuqata oo ay ku dhamaatay sharax yara la geliyo lagu kala jaray waxaa la bilaabay Daaha bismillaahir rahmaanir rahiim Daaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqa al-arda was-samawati al-'ula ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ardi wa ma baynahuma wa ma الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى سي مغدولي راتكيسي سي مغدولي واطي حسن وارين ماركتي معجزة marka adeegto laakiin sida uu qoran yahay muxuu kaga duwan yahay baad oran lahayd kitaabkan jaamaca maanta aan naqaano kitaabka jaamaca maanta aan naqaano sida uu u qoran yahay ayuu u qoran yahay waayo kitaabka maanta aan naqaano Usmaan baa qoray Usmaan bin Affan waxaana loo yaqaanaa qoraalka waxaa loo yaqaanaa ar-rasm al-Uthmani qoraalka Usmaan lagama bedeli karo sidan quraanka loo bedeli karin ayaan qoraalkan loo bedeli karin. marka horaad ka garanaysaa inuu asagii yahay qoraalkii rasuulku kaleey salaatu wasalaam asagoo jooga la qoro kan halkan ku qoran iyo kan kitaabka waa isku mid kaliya waxa ka duwan shaqalka ayaa ka duwan. shaqalkana waxaa la qoray xilligii Sayyidina Muawiya uu joogay oo adiga waxa waaye nus qarni markii hijriga ahayd agaarkeeda la qoray ka un baa ka duwan
shaqa la-aantani faa'iidada ay leedahay weliba faa'iidada shaqa la-aantu leedahay waxaa ka mid ah luqadii qurayshta iyo ahlu xijaasku hadli jireen oo kala duwaneed ayaa haddii shaqalka laga daayo waxay noqonaysaa ninka mufasirka ah oo qur-aanka fasiraya wuxuu helayaa soo meelo badan oo uu fasirka u leexin karo haddaan tusaale soo qaato suuratul kaliya maliki yowm اdiin suurat alfaatixa maliki yowm اdiin ama maliki yowm اdiin maliki ama maliki haddii shaqalka laga daayo labadaba waa loo akrin karaa maliki laakiin haddii la shaqlo taad ku shaqasho un bay noqonaysa waa tay xasan ugu dambayntii arrintani sumcad weyn iyo magac weyn ayaa sida warbixinuhu ay sheegeen ay u noqonaysaa jaamacadda magaalada birmingham iyo magaaladaaba guud ahaan maxaa kitaabkan iminka lagu samaynaya baa layidhi wallaahi taa kaliya maahe aniga haddeer markaan arkay cabdisalaam waxaan dareemay sidii inaan joogo xilligaa inaan joogo kalan dareemay waayo waa markii iigu horeysay oo aan jaanis u helo wax sidan oo kale ah marka muslimiintana way u fiican tahay adduunka oo dhan gaar ahaan muslimiinta ku nool u k waxaa loo furi doonaa baa layidhi dadka inay arkaan octoobar laga bilaabo inay arkaan marka waxaa ii muuqata in malaayiin muslimiina iyo malaayiin kale oo muslimiin ahay laakiin jecel inay wax ogaadaan inay imaan doonaan dowladda ingiriiska dhaqaalo badan ka soo geli doono muslimiintana wax badan ay u tari doonto lagana yaabo weliba dad badan inay u noqoto inay dhici karto inay ku muslimaan xasan xundubey aad iyo aad baad umahadsantahay